sidaad la socotaan waxaa la weerarayaa hadda oo cagaf ku jirta oo madaxweyne xasan sheekh warqado ugu soo qoray dad ganacsata iyo dad kale oo dilaaliin oo isdaba socda ragii astaanta wadankan qarankan oo ah midnimada wadanka Soomaaliyeed ciyaar kuma imaan dhiig baa ku soo daatay iyo maal iyo maskax dadkii hogaaminayay baa dhulkoodii oo 60kii la bixiyay oo damaanadyaal ah oo shuruucdoodii haysta baa maanta la rabaa dhulkoodii in la wareego xasan sheekh ku dhiiraday inta warqada qoro inuu dad مساكين oo Soomaali oo ganacsata oo halka ku ajaro oo yiraahdo orda dhulka booba xukuumadda xasan sheekh ay soo dhameysay dhulkii danta guud ay hadda u soo jeesatay inay gacanta saarto ama ay boobto dhulkii muwaadiniinta gaarka ah ay lahaayeen waxaana kala le sidaan u sheegay nimankaas khiyaarta ah oo wadanka u soo halgamay oo ugu horeeyo ra'iisul wasaarihii hore cigaal maxamed ibrahim cigaal wasiirkiisa arrimaha gudaha yaasiin nur xasan bidde wasiirkii علي جراد جامع dhulkoodii waxaa ka qixiyay duruufihii iyo dagaaladii sokeeye ee dalkan ka dhacay waa nasiib darro markii ummadda Soomaaliyeed ay soo laaban lahayd oo ay soo laaban lahayd hantidoodii in warqado gaar ah iyo noostooyin uu madaxweyne xasan sheekh u soo qoro rag saaxiibadiis ah kuwaas isugu jira ganacsato iyo siyaasadeed xildhibaano iyo senataro ku shiray magaalada Muqdisho ayaa war culus ka soo saaray boob ay sheegeen in lagu hayo dhul Muqdisho ku yaala oo ay lahaayeen مسؤولين برسماتكي xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo halgamayaal waxa ay tilmaameen in ganacsato iyo siyaasiyiin ogolaasho ka haysta madaxweyne xasan sheekh ay boobiyaan dhulkan oo ku kala yaala degmada Cabdilcasiis Soonakey degmada Hodan iyo agagarka Villa Baydhabo ee degmada Wadajir dhulkan ay sheegeen in ay lahaayeen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Ibrahim Cigaal wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda rayidka Yaasiin Nur Xasan Bidde daahir dhagaweyne oo ka mid ahaa 13 leegada Cabdullaahi Qablan oo wasiirka ahaa dawladii rayidka ahayd iyo Garaad Cali Garaad Jaamac oo wasiirka ahaa isna dawladii rayidka waxa ay digniin u direen shakhsiyaadka ku howlan boobka iyaga oo diray fariin ah in dhulkaasi aan lagu kasoomin senator Goley iyo xildhibaan Dhokor oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixinaya dhulkan iyo digniinta ay dirayaan halkan caawa waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan dad mudanayaal oo Soomaaliyeed oo dhulkoodii la boobay ama hadda boob ku socdo guud ahaan markii la fiiriyo ummadda Soomaaliyeed dhibaato xagga dhulka kaga dhacday ma aha wax cusub in ummadda Soomaaliyeed iyo dhul boobka laga hadlo laakiin tan caawa waxay kaga duwan tahay dadkii wadankan u soo halgamay oo leega ahaa dadkii wadankan midnimadiisa ka shaqeeyay bay hadda mididu saaran tahay oo cagaf ku jirta dhulkooda taas waxay ka liftay in kastoo ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed dadkaas ay u xil qabaan oo mas'uuliyad ka saaran tahay inaanu anagoo ah xildhibaanadii matalayay dadkaas hadda weerarka lagu qaaday dhulkooda oo ahaa mas'uuliyiintii hore Soomaaliya oo qarankan u soo halgantay in lagu kaliftay caawa inaan halkan kaga hadalno dhulkooda oo cadeyno ummadda Soomaaliyeed u bayaamino khaladaadka halka ka jira iyo dhul boobka cusub oo dadkii Soomaaliyeed astaanta lagu la kacayo sidaad la socotaan waxaa la weerarayaa hadda oo cagaf ku jirta oo madaxweyne xasan sheekh warqado ugu soo qoray dad ganacsata iyo dad kale oo dilaaliin oo isdaba socda ragii astaanta wadankan qarankan oo ah midnimada wadanka Soomaaliyeed ciyaar kuma imaan dhiig baa ku soo daatay iyo maal iyo maskax dadkii hogaaminayay baa dhulkoodii oo 60kii la bixiyay oo damaanadyaal ah oo shuruucdoodii haysta baa maanta la rabaa dhulkoodii in la wareego xasan sheekh ku dhiiraday inta warqada qoro inuu dad مساكين oo Soomaali oo ganacsata oo halka ku ajaro oo yiraahdo orda dhulka booba anna lacag iga keen waa wax laga xumaado dhulkaas la boobayo waxay ku kala yaaleen Cabdilcasiis Soonakey Villa Baydhabo bay ku kala yaalaan waxaana kala le sidaan u sheegay nimankaas khiyaarta ah oo wadanka u soo halgamay oo ugu horeeyo ra'iisul wasaarihii hore cigaal maxamed ibrahim cigaal wasiirkiisa arrimaha gudaha yaasiin nur xasan bidde wasiirkii cali garaad jaamac wasiirkii kale cabdullaahi qablan raggaas baa dhulka kala leh halkaas dhulkaasuna ku kala yaalaa Soonakey Cabdilcasiis iyo Villa Baydhabo dhulkaas ku kala yaalaan halkaas dadkii Soomaaliyeed baa wali qaar hortaagan qaarna cagaf bay gashadeen waxaan halkaas sidaa darteed halkan waxaan rabaa fartiin inaan ka diro waxaan fartiin u dirayaa dadka ganacsatada ah oo warqada loo qoray inaysan dhulka ku kadsoomin dhulka la iskaga harimayo waa dhul damaalyaal ah waa dhul sharci ah
waa dhul aan la iskaga hari doonin, waa dhul idna ka faa'iidi doonin. waxaan digniin si waadax aan u sheegaynaa oo qeexan waxaan u sheegaynaa dhulkaas haddaad lacagtiina iska gelisaan lacagtiinu inay khasaartay. dhulkaas dhul aad heli doontaan maaha, waa idinka digaynaa, ka joogsada dhulkaa. nimanka ganacsatada magacyadooda waa naqaanaa, ma rabna inaan halkan ka sheegno, caawa ha dhegaysteen. dhul la iskaga haraya maaha, waa madaxdii hore 13 leega ninkii ku jiray oo wadankan asagoo gumaysi ku jira oo u soo halgamay iyo ragga la midka ah oo wadankan isu keenay dowladnimadiisa dhulkiisa oo sharci ah oo shuruucdoodii la wada hayo kulladii maysaan waxna ka faa'iidi maysaan. yaan xasan sheekh qaridin ka xoorin, madaxweyne xasan sheekhna waxaan tala ku siin lahaa dhulkan kala dirtay dalkiina baa burburisi, aduuna ku eersaday, Soomaaliya aday ku eersatay. intaa yaroo hadda sii wariregle bal waxun in lagaaga dambeeyo, ilaahay inta ka baqday dadka dhulkiisa faraha kala bax. waxaan kaloo ku darayaa halkan digniin kale oo aan u dirayo cid kastoo ku hawlan dhul ay leeyihiin dad Soomaaliyeed oo masaakiina oo aan waxba galabsan raba inay la wareegaan. ilaahay ha ka baqeen, dalkan iyay kala dirin, inta hartiyay burburin. intaasaan oran lahaa. hada wabillahi tawfiiq. runtii hadalka nuxurkiisa waxaa dhamiyey sanatoorka. ujeedada caawa aan halkan isugu nimi u fadhina waxay tahay inaanu qayladhaan iyo baaq ka soo saarno dhul muwaadiniin Soomaaliyeed oo aanu matalo, kuwaas oo markii xukuumadda xasan sheekh ay soo dhameysay dhulkii danta guud ay hadda u soo jeesatay inay gacanta saarto ama ay boobto dhulkii muwaadiniinta gaarka ah ay lahaayeen. sanatoorka ayaa sheegay muwaadiniintaas kulligood waxay ahaayeen mas-uuliyiin dalkan xilal sare ka soo qabtay, waxay ahaayeen ganacsato qaybahooda kala duwan, waxay ahaayeen bulshada. dhulkoodii waxaa ka qaxiyey duruufihii iyo dagaaladii sokeeye ee dalkan ka dhacay. waa nasiib darro markii ummadda Soomaaliyeed ay isu soo laaban lahayd oo ay u soo laaban lahayd hantidoodii in warqado gaar ah iyo noostooyin uu madaxweyne xasan sheekh usoo qoro rag saaxiibadiis ah, kuwaas oo isugu jira ganacsato iyo siyaasadeed, uguna xalaaleynayo muwaadiniintaasi dhulka ay leeyihiin. maxkamadihii dalka ka jiray way xukumeen inay muwaadiniintaasi leeyihiin, way caddeeyeen. markii ay heerkii fulinta maraysay waxaa soo baxday in madaxweynuhu uu is hortaago, cid gaarana uu usoo qoro warqado amrana in loo fuliyo. waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego dadka adduunku sharci buu ku kala baxaa. sharcigii dhulkaas muwaadiniinta ay lahaayeen waa loo xukumay, laakiin waxaa hadda laalay sharcigii madaxweynaha dalka ka jira oo is hortaagay in loogu fuliyo shuruucdaas dalka ka jirta muwaadiniintaasi dhulka ay lahaayeen. hadday taasi dhacdo ummadda Soomaaliyeed dhaqan iyo xeer bay ku kala bixi jirtay. waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhulkaas cid sharciga ka weyni ma jirto, waa la isaga daba imaanayaa, waa la iskula xisaabtamayaa. cid kasta oo isku dhacda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhulkooda duustiisana maalin baa jiri doonta lugta laga qabto oo banaanka laga soo dhigo. waxaan leenahay hantidiina ha gelinina, hana agmarina, waayo qof Soomaaliya dastuurka dalka ayaa ugu sarreeyo ilaalinaya hantidiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa. cidina cid kama sarreyso, sharciga cid ka sarreysaana ma jirto. madaxweynahan ka sarreyn, kuwa ka hooseeya saaxiibadiisaan ka sarreyn. hadday maanta is dheheen qalinkaad ku dhici kartaan ummad Soomaaliyeed dhulkiina, been baa isu sheegteen baan leenahay, waa la isaga daba imaanayaa. intaa uun baan anaguna kusoo koobaya, xildhibaanaduna way mahadsan yihiin. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.